السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مدة الصوماليات قفتيدا لهذا سوالاشين أمن لك أوفيشيال سلام كدب حيابا عجيبة وميديا كسعودة جيابية oo aad mooddo inuu aad ugu soo badanayaan bulshada Soomaaliyeed waa marwooyin hooyooyin la qabo oo mid walba intay soo gashay ay leedahay video qaldan baa iga soo galay wallahi bilaa wax laga yaabo videoga qaldan markaaga hore maxaa ka duubay sabab maxaad ka helaysay maxaad ka helaysay maxay tahay videoga qaldan dad video qaldan iska duubaysid ee waliba ninkaaga ku dhinac fadhiya gabadhan hadda aan ka hadlayo aan ku arkay miiriyaha nin aan daacad ahayn baa madaxa u salaaxayo le waa xaaskaygu waa jecla macal asif iskamay fahmin inuuna jeclayn ninku jecel horta inaad isduubto iyo inuu ku duubto toona ma ogolaado sharaftaada u ilaaliya waa koo iyaalkaa ka soo geliyo caruurta video khaldan xaaskayga ka soo gudbiyay waa been cad saasuu ku leeyahay intuu madaxa u salaaxo iskama ay fahmin khiyaanada uu ku samaynayo ilmo yaryar ma soo gelin karaan media haddaad si og tahay inuu telefoonkaaga hooyo walbaba iyo inta badan waliba aabayaasha uma badnay hooyo walba telefonkeeda ilmaha ugu yar guriga uu ku ciyaara oo marala markaas u timaado guriga telefonka ilmaha yar baa iskaga ciyaaro game iyo wax ku ciyaara adoo og in ilmahaaga yarka meel walba uu taaban karo kaagana cilmi badan yahay maxaa ku keentay inaad video khaldan u gelisid miyuu ilmahaaga xitaa arkaynin videoga khaldan hore waxa loogu maamaahay ama waxa la yiri afeef hore laho ama adkaysi dambe laho inta media soo fariisato walaalayaal ha sii gudbinina video khaldan ba caruurta iga soo gelisay aqli ma aha videoga ilaa United Nation ku tagaya because adigu ma xukuntid ma fahant inta waxa la hadal wuxuu walba saas amaan yahay baa inta uurkaaga ku jiro sawirka iyo maxanaad iska duubaysana haddii aadan iskaba duubi lahayn amaan buu ku ahaan lahaa laakiin ilaahay hadda maskaxdeeda waxa geli la sababaha isku duuduubaysaan waayo saad uga yeeshaan nin inaad isku duubtid ama ha ku qaba ama ku qabine saad uga yeeshaa adigoo arkaayo waxa la qeyrkii loo xiriyo adigana soo muxuu ahaa soo qoyso waad aragtay media waxa laga sameeyo waad aragtay dumarkii Soomaaliyeed waxa lagu sameeyo hooyooyin Soomaaliyeed waxa lagu sameeyo waad aragtay dhibaatada dhacaysa waad aragtay maxaa keenay marka inaad isduubto wali maxaa keenay inaad wali isduubto adoo arkaya xaaladaha socda bal gabadhan ila dhageysta aqal xumadeed ninay arkaysa inuu qiyaameeyay oo ciyaalka dambiga saaraya intuu isagii sii gudbiyay wuxuu leeyahay waan jecel xaaskayga yaan la isku yaan la kala fogeynin sawir khaldan baa ka soo galay meesha aqli ku faantana male markeedii hore maxaa duubayba dhageysa qoftan ajiib iyo wallahi yaa ba ilaahay keen bismillaahir rahmaanir rahiim maraba inaan video ka soo galay sawirkeeda ayaa video qaldan ilmahayna ka soo tuureen marka waxaan ka codsanaynaa inaan mar dambe fiirsan islanteedana waan jecelahay yaana la kala dheereen aqli xumadaas bul maqla islanteedana waan jecelahay aan kala dheeraynin iyaalka soo galiyay sawir khaldan ayana waa fadhidaa iyadoo quruxdeeda aad yaabto wallahi billahi tallaha aad baa u khasaarteen gabdhaha Soomaaliyeed aad baa u khasaarteen intiina badan waad isku ciyaarteen sharaftiina waa ku ciyaarteen waa garan weydeen ka idin daran iyo ka idin roon waad fahmi weydeen ka idin jecel iyo ka idin neceb waa fahmi weydeen waxa diintiinu ogashahay waxa diintiinu diidantaa gabdhaha dhan wada sheegayo laakiin inta badan khaladaadka dhacaya dumar badan baa soo galay oo xitaa gabdha yar ahayn oo dumar waaweyn hadday gabar yartaa waxa ma dhilaa khalad uu ka dhici karaa gabdhi yar ayaa idinka wada aqli batay maamooyinkii waaweynaa ama maalin walba sawirkeed mid la keenaya aqli baa loo baahan yahay maskax ka kula joogana ii dub hadduu ku yiraahdo inuu cadowgaaga yahay ogow
inuuna asxaan kuu samaynayn ogow sababtu kuu leeyahay ii duub ama ii soo dir ama aan ku arko ama sidan yeel ama halkan sababtu kuu leeyahay waxaad ogaataa inuuna future mustaqbal midnaba kaa lahayn nin sharaf iyo wanaag kaa leh kuma duuduubanayo wuu ku daboolaya wuu ku sharfayaa ninkaasi diinteena waxay tiri ninka iyo muxuu ahaa gabadhii ninka isqaba hubay isku yihiin dharkaa xiranaysaan baad isku tihiin saasuu kuu asturayaa ninna isagoo qaawun banaanka ma maro xaaskiisana saasoo kale uu asturayaa ninka laakiin ninku la iisoo duub waxaan iisoo duub kan samee markaagii hore ayuuna rajo kaa lahayn waxba yuu madaxa kuu salaaxin gabadhaas waad i fahmi doontaa mar raba inaan videogaaga soo geliyo mar raba inaan dad aanan ku arkin ku sii tuso maadaama aad arrin xasaasiya ka hadlayso ummadaan ogeyn inaan ku sii tuso diyaar uma ihi waad i hortaalaa tvgayga waad hortaalaa waad isfahmi doontaa walaashay ninkan madaxa kuu salaaxaya daacad maaha ilmo yarna kaama soo gelin meel sawirkaad iska duubtay waxaad tiri videoga khaldan aad leedahayna soomaalinimo iyo islaamnimo haddaan wax kuugu sheego khaladkaasoo kale mar dambe ha gelin taleefanku ammaankaaga ma aha taleefanku meel baad uga kici kartaa waad ogtaa waa ilooshiyo badannaa soomaali baan nahay isagoo bilaa baasword aad ilaawi kartaa ama baaswordka la jabsan karaa meel walba ayuu gaari karaa sawirkaaga maxaa marka keenay inaad sawirkaaga aad ku kaydiso telefoon ammaan ku ahayn oo meel walba gaari kara amar baa kugu dhici kara waad sakaraadi kartaa dhakhtar baa lagu dhigi karaa ilmahaaga yararaaba habeen iyo maalinba game ku ciyaaraya fiirsanaya saad ku keentay marka inaad waxyaabo sawasaad sheegaysid video khaldan maxaa video khaldan keeni kara isla yaabo gabdho is astura ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xishooda naftiina ha ceebaynina rag soo galaya ma arkaysaan oo kule video khaldan baa layga duuba inta badan waa dumar caqligaagu ha shaqeeyo ninka markuu ku yiraahdo wax ii qaawiba rajo kaama laha wax uu rajo kaaleeyaa ma jirto ninka rajada kaale ee ku jecel waa ninka ku ilaashada waa ninka sharaftaada ilaaliya haddaad adigu xitaa waalantood isqaawinaysa waa ninka ku yiraahdo may walaalo is astur oo ilaahay ka baq ninkaasoo kale mustaqbalka leh ninku wuxuu mustaqbalka leeyahay wuxuu rabay wuxuu jecel yahay wuu ilaashadaa gabdho laakiin ninku haddii uuna mustaqbalka rabin siduu rabo kugu ciyaaraya sawirka mar step by step waxbaa ku sii xiga markuu sawirku yiraahdo ii soo dir kan ii soo dir haddana wax kale ku sii xiga wixii way sii soconayaan waa sida balwadoo kale balwada inta badan raggood muxuu ahaa dadku badanaa sigaar bay hadda laga yaabaa inay bartaan qaad baa laga yaabaa inay bartaan khamri baa laga yaabaa kadibna wuxuu ku ridayaa daroogadii la isku duraayo saasoo kale ayuu ninku wuxuu isugu kaadayaa marka hore step by step waynu ku dayaan waynu ku fiiriyaan gabdhaha marka mar raba inaan gabadha soo geliyo videogeeda way fahmi doontaa waan barayaa videogeega sii gudbiya sii gaarsiiya insha Allah idinkuna haddaa videoyadeeda aragtaan ilaahay ka baqaa sii gudbinina waxaan lama sii gudbiyaha sii gudbinina qof khalad ka dhacay ma hayna khaladkiisi sii gudbisaan oo dambi aad intaas ka sii gashaan sababtaasaan aniga sawirkeeda u qariyay in codkeedii kaliya u saaray wali way ku jirtaa iyadoo leh hayga sii gudbinina iyo ninkii oo wali madaxa u salaaxaya waadna dareemaysaa inuu khiyaanoola yahay ninka garab fadhiya xaaskayga waan jeclahay video khaldan baa ilmuhu naga soo geliyeen maxaa xaaskaaga u ogolaatay video khaldan haddaad nin ilaahay ka baqayo xaaskiisa jeclaata inaad cadow tahay baa halkaa ka arkaya laakiin iyadu kumay fahmin si yaroo degan bay ku ag fadhidaa maanta maalin aan ahayn bay fahmi doontaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu